Daawade, ka soo qaad maalin maalmaha ka mid ah waxaad go'aansatay inaad dalxiis u aado waddan kale, waxaadna xaadir ka noqotay eelboorka si aad tikid u goosato, aadna u raacdo diyaaraddii aad ku qornayd. Balse nasiib xumo, waxaa lagugu dhahay kama bixi kartid eelboorka muddo 18 sano ah. Dabcan, waa arrin aan suurtagal noqonayn. Balse daawade, waxay dhacdadan ku dhacday nin u dhashay dalka Iiraan, magaciisuna yahay Mehran Karimi, wuxuuna ku xirnaa eelboorka magaalada Bariis laga soo bilaabo 1988 ilaa 2006, ahna muddo 18 sano ah. Daawadayaal, ku soo dhawaada xalqadeena maanta oo aan ku eegayno ninkii filimka laga sameeyay ee ku xayirnaa eelboorka muddo 18 sano ah. Waxay ahayd xilli duhur ah, waa maalin Jimcaha kuna beegan 26 Agost ee 1988kii. Mehran Karimi waxa uu toos u soo abaaray eelboorka dalkiisa hooyo ee Iiraan, wuxuuna hadafkiisu ahaa inuu si nabad ah uga dego eelboorka magaalada Bariis, kadibna uu u sii duulo boqortooyada Ingiriiska si uu ula kulmo mid ka mid ah waalidiintiisa oo ahaa British. Kasoo degidda eelboorka magaalada Bariis waxay u ahayd mid uu ku farxo, balse farxaddaasi maysan noqon mid sii waarta. Daqiiqado kadib, inta uusan ka bixin gudaha eelboorka Bariis, waxa uu imaaday ciidamada booliiska ee Bariis, waxayna ku yiraahdeen kama bixi kartid gudaha eelboorka. Balse Alfred, oo ah naanaysta ninkan, ayaa ahaa mid aan fahmin hadalkooda, maadaama uu ahaa mid aan aqoon u lahayn luqadda Faransiiska, waxaana loogu yeeray turjume. Kadibna hadalkii ayaa loo turjumay. Alfred ayaa damcay inuu su'aalo weydiiyo booliiska, balse hadalkiisu wax dhegeysta waa uu waayey. Alfred ayaa u maleeyay inuu saacado kooban uu joogayo eelboorka, balse muusan ogeyn inuu soo galay god uu ku jiri doono muddo 18 sano ah. Alfred waxa uu sugaba waxaa ka soo wareegatay muddo 3 sano ah, wuxuuna go'aansaday inuu iskaga noolaado gudaha eelboorka, isagoo shaqooyin yaryar ka qaban jiray gudaha eelboorka si uu lacag uga helo. Wuxuuna inta badan waqtigiisa ku lumin jiray akhrinta buugaagta iyo daawashada dadka iska dhex mushaaxaya gudaha eelboorka. Sannado kadib, Alfred ayaa niyad jabay una qaatay inuu ku geeriyoon doono gudaha eelboorkan. Waxaa ka soo wareegatay muddo 11 sano ah. Ugu dambeyn, Alfred waxaa soo gaartay rajadii uu mar ku taami jiray. Sanadka markuu ah 1999kii, waxaa Alfred soo gaaray warqado muujinaya inuu ka soo baxayo eelboorkii uu ku xayirnaa iyo inuu si nabad ah ugu noolaan karo gudaha dalka Faransiiska. Balse Alfred ayaa jeexay warqadahaasi isagoo u maleeyay in warqaduhu ay yihiin kuwo feeg ah. Shaqaalihii ayaa la yaabay Alfred, waxayna ku yiraahdeen waxaad tahay mid waalan. Waxay ahayd in lagu geeyo goobta lagu xanaanayo dadka waalid qaba, ee maysan ahayn in eelboorkan lagugu soo xiro. Kadib Alfred ayaa gartay qaladkii uu sameeyey, waxaana Alfred lagu ciqaabay qaladkii uu galay, isagoo loo sheegay in 7 sano uu kusii jiri doono gudaha eelboorkan. Alfred waxa uu ku cidloodaba gudaha eelboorkan ee xabsiga ku noqday. Waxaa la soo gaaray xilligii uu ka bixi lahaa. Sanadkii 2006 ayaa laga soo saaray eelboorkii uu ku xayirnaa muddadii dheereed ee gaaraysay 18 sano. Waxaana looga soo saaray maadaama uu ku xanuunsaday gudaha eelboorka, waxaana la keenay isbitaalka. Kadib markii uu caafimaadayna ayaa loo sheegay in maanta kadib uusan dib ugu noqon doonin eelboorka. Waxaana loo sheegay in sababta keentay inuu ku xayirmo eelboorka inay ahayd inuu iska lumiyey warqadihii caddeynaya inuu ahaa qof qaxooti ah, waxaana intaa kadib la siiyey lacag gaaraysay $300,000. Qisada Alfred ee layaabka ku noqotay dadyow aad u fara badan ayaa laga sameeyey filim la magac baxay The Terminal oo la soo daayay sanadkii 2004. Filimkan ayaa ahaa filim ku saabsan qaabkii uu Alfred u noolaa 18 sano ee uu ku xayirnaa eelboorka. Waana filim aad ka heli karto baraha bulshada.